السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا جانالكيغا فردوس اسكو فيلان ومركا لئي نيو فيديو بليس هدي ايتا مركا كوغو هوريسا او جانالكا سو بوقاتو حانكا عدسانا ناس كراب كريسو أصحابتا هذا كاللسي وداكتو وكما سنتا داوشيدا مقالكا أصحابي سو دوادا الحمد لله إلهي ما هذا دون أسقناتي أنا نوض إسو علي وحرجينا يا سأنا عافمات قبل أصول لابتي إنا أذنكو عافمات قبل أقوليهن إيجوبيهن شقي ميل وباجوكتانا جوكتينا إلهي إذن ويدينا يا وأنا رجينا إنا عافمات قبتين ما شاء الله تبارك الله أدي أذن كوجو حيسا أصحابي فيديو قدام بمركان سو إدين سو دوباي oo maxaa la hirgabahay doonta dhan yani aad ii xirneyd anuu si fiican uga raysan inaan maxaa la dhahaa codkaas xataa soo geliyay dadka qaar oo iisoo qoran waa hirgabsantaa allah ku caafiyo waa mahadsantihiin allahuma aamiin asxaabay alxamdulilah hirgab korta ugu soo noqnoqda gurigoo iga dhigtay laakiin alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala wuu iga biyey wuu iga caafimaadiyey ramadaanka ilaahay nabada noogu dhameeyey adaa uga xumaha inaa ciid mubaarak idin soo dhihin because mashquulku aad u badnaa iyo hirgab igu soo laalaabtay iyo alxamdulilah waa nimco baraka iska jirtay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa khayraan weydiisanaynaa insha allah inta xanuunsan allaha caafiyo inta dhimatana ilaahay subxaanahu watacaala allaha u naxariisto ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiinaynaa inta isbitaalada jiifto inuu ilaahay salaamo uga soo bixiyo انت dhimatana ilaahay subxaanahu watacaala allah u naxariisto annakana kabacdigood ilaahay nama fidneeyo inta awlaad laga haysto ilaahay awlaadooda gacantooda ku soo celiyo intay xabsiya uga jiraana ilaahay subxaanahu watacaala ayagoo kusoo waantamay oo wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala allah u soo celiyo asxaabay baartaan u jeedaan fiidiyowga mar hore ahaay laakiin waxaan jeclaystay maadaama mar hore intaan duubay yani aan soo gelin inaan soo geliyo family bag waaye waa maalin ayadoo taa waa ujeedin ilaa habeenkaana gaari doonaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay yiraahdo family bag waxaa waa family bag aada u fiican wuxuu ku yaalaa rixaabtu wuu ku yaalaa xaafada rixaab wuu ku yaalaa maasha allah tabaaraka allah lacagtiisa qaali maaha yani ilmaha meel ka helayaan waaye oo sidii dalxiis camal ay dareemayaan maasha allah markii la keeyo ani mar walba ilmahayga waan geey jiray inkastoo ayaantaan aana aadin insha allah samara bilaabanaa hadda iskoolkana waa la xirayaa insha allahu tacaala markaasaan gei doonaa hadduu ilaahay yiraahdo yani lacag yaraa ku galaysaa ilmihiina xataa meelaha fanfairka ayadoo ahayn meelo baag caadiya kuuga cayaaraan ku helaan sida hadda meesha aan socdo aa ujeediin maasha allah waa ujeediin albaabkaa kasoo galnay iyo banaankii wixii oo dhan waa ujeedeen maasha allah tabaaraka allah meel waxay leeyihiin meeshaas biyaha ujeediin doomana lagu wadaa maasha allah tabaaraka allah doonta lacagta lagu wadaayana $60 waa $1 way ka yartahay calaa cunug marka ilmaha aad saaraysid meel kale xataa biyaha maasha allah tabaaraka allah ay leedahay meeshaas waa playgroundka caadiga ee ilmaha ku cayaaraan waaye kaas albaabka hadaa kasoo gashay meeshaas free ku tahay waxay leedahay meel oo zoom ah leedahay oo xadiiqada xayawaanaad free أيضا كوتا just waxa lacag ee waa fanfairka kaliya laakiin inta kale oo dhan waa free waaye marka ilmaha fana ku siisan kartaa maxaa la dhahaa inta waxyaabaha oo dhan aad u qaadatid oo kribsi drinkii meelaha uga gadatid oo sandwichetkaaga u samaysata inta geeso galabta dhan way iskaga cayaarayaan ilaa habeenkii 10 anigu waqtigan hadeertaan waxaan kasoo tagnay 11 habeenimo kasoo tagnay gurigeena imaan alxamdulilah ilaahay mahadoo dhan u sugnaatay ilaahay subxaana watacaalaana qof walbo oo jecel inay imaato qaahiro ilaahay subxaana watacaala allah usoo fududeeyo qof walbo oo jecel wadan muslimiin inay u haajirto oo awlaadeeda geysatana ilaahay waxaan weydiinayaa inuu ilaahay subxaana watacaala u fududeeyo walaalaha ku cusub gabdho badanaa jiro qaahiro ku cusub imaaday waxaan kula dardaarmi lahaa insha allah inay sabraan ilmahooda ay la dadaalaan diinta maxaa la dhahaa sida nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxay ugu soo degay caruurta uguma soo degayso dadaal iyo juhdi yaa lagaaga baahan yahay hooyo haddaa taa kulli waxa ilmaha hooyooyin waaye inaa macalin fiican ilmahaaga u raadsatid maxaa la dhahaa ilmahaaga inaad dadaal gelisid oo juhdi gelisid maxaa la dhahaa mar walbo
ilmaha inaad sas gacanta ugu haysatid ooda isdhihin wadan muslina keentee free ha kuu noqdaan. So waxaa laga yaabaa wadankaa ka keenta inuu ka halis badan yahay meesha aa keenta haddaa ilmahaaga free ka dhigtid. laakiin haddii aa gacantaada ku haysatid qof kugu kontrooleyso ilaah abuurta ma lahan. ilmahaaga adaa dhalay, wax walbo oo wanaagana adaa u samaysan karo. So marka meel ilmahaaga xor u tahay oo aada qof uga cabsanin ilaahi subxaana watacaala moogiye aa joogtaa. hooyo walbo oo Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa awlaadaada waqtiga ay kuu baahan yihiin waa waqti aad u yar. uga faa'iideey waqtigooda, ha ugu micnaa daraha uga dhameynin dhallinyaranimadooda. cunuga markuu dhalin yaryaha yani caruurnimo waa cadow laga koray Soomaalida dhahdaa. markuu yaryaha waxba ma kala fahmay, aqliga iyo maskaxda hooyada u hayso iyo aabaha. So marka waxaa loo baahan yahay in aqligooda looga faa'iideeyo, aalada laga yareeyo. ilmaha intay yaryihiin quraanka si fiican loo baro, axaadiista loo baro, siirada loo baro, wax walbo oo caqiidadoo dhan laga dhiso intay yaryar yihiin. laakiin haddaa markaa imaatid ku mashquushid meeshaan boore leedahay, meeshaan magaciisi leedahay, gurigan saan uu yahay, maanta dhan aa ku mashquushid, waqtigii ilmaha kaa dhamaanayo, berrinaba aa ka tegaysaa. So marka haddii aad Masar imaatid iyo haddaad wadan kala tagtiba, wadan walba oo tagtid uga faa'iideey ilmahaaga. wadankaas wuu dhisan yahay dad dhan qowmiyad dhanaana degan aa u tagtay. So marka cunugaaga kaliya yuusa kaala waxaysnaanin ilmaha dadkaas dhan oo meesha degan, cunugaaga kaala weynaanin. cunugaaga wax waa bari kartaa, dadkaas bay'ad wax baranaysa waa baro. hadday diin noqoto iyo hadday maadi noqotaba cunugaaga ku dadaal. cunuga juhdi oo u baahan yahay. waxaan arkaa hooyooyinka qaar oo dhahayo wadan muslinaan keenay, cunugii still salaad kaligiis ma dukanayo, quraan kaligiis ma akhrisanayo, wax walba anigii dhaa. yes waa dhehaysaa because hooyaa tahay. hooyo waxaa u tahana inaad daashidoo dhibtootid because berri aa ku intifaacsana insha allahu tacaala hadduu ilaahay yiraahdo. So marka maanta ilmaha waxa loogu dhibtoonayana waxay tahay berri waxa ku taraan. cunuga caqiido lahaynin waxba kuuma taraayo, wax oo ku taraayo oo ilaah abuurta ma lahan. marka inta uu yaryaha cunuga u faa'iideey, caqiidadiisa uga faa'iideey, waxbar. hadduu cunug waxbarto oo kuu noqdo beri asaa ku anfacayo. wuu ogaanayaa hooyadiis iyo aabihiis inay la soo dadaaleen. So marka aabihii wuu dadaalayaa, wuu shaqaynayaa, wuxuu jiraa wadan qabow ah oo maxaa la dhahaa xaas guri u kaliin kareen oo soo dhar u dhaqayso, cunto u karinaysa aysan la joogin, oo kaligiis wax walba samaysanayo. So marka lacagaa waxaa ku qaadataa fadhigaaga adoo fadhiyo. So marka ilmaha in lagu dadaalo oo inta ay waqti haystaan waqtiga aa uga faa'iideysid, maadaama aabihii juhdi bixinayo oo wixii aa cuni lahaydee waxaa cabi lahaydee waxbarashada ilmaha uu kusoo dadaalayo. adigana waxaa ku dadaashaa ilmahaaga saa caqiido aa u bari lahayd, oo ilmo caqiidada uga dhisan aa uga dhigi lahayd, ooda uga dhigin ilmo maxaa la dhahaa boodiga bis ka dhisan, oo ilmo maskaxda ka dhisan saa usoo saari lahayd. So marka adi markaa hooyo tahayna waxaa u baahan tahay hooyo wax baratay inaad noqoto. So marka hooyo dadaaleyso oo ilmihiina wax barayso, ayadina wax barayso aa loo baahan yahay inaan noqono. marka hooyoyin wax barta Allah naga yeelo. hooyada marka ayada wax taqaano, cunugeeda wax barashada way kula dadaaleysaa. So mar walbabana waxa iska ilaalisiin gabdho nafteydii tiina waa kula dartaa, ama dadka negative-ka oo negative moogi wax kale positive oo dhanba aan aqoonin. qofka markuu rabto gabadh inay wax barato niyada ka jabiyo, hooyaa tahay, ilmo yar haysata, waa daalanta, kuma wax baranaysaa dadka dhaho. So marka dadka markaad wadankan aad soo weydiiso ama wadan walbo aad u baahan tahay ku yiraahdo meeshan waxba lagama barto ka carar, dadkaasoo kale negative-ka so sidaa ayaga yihiin ka dhigayaan. waxaa maqli jira dariskaa kuma cadeeyo kuma madoobay sidoo yahay ka dhiga. marka qofka waxaa qofku wax la weydiiyaa oo maxaa la dhahaa mar walbaba loo dhawaadaa wuxuu yahay qofka markuu positive yahay oo dhahay alxamdulillah waa nimcaysana waa ku barakeysana. meeshaan gabdhaha jira Soomaaliya aad oo ilmahooda maasha Allah quraanka dhaqsi ugu dhameeyeen. waxaa jiro gabdha Kenya aad ilmahooda maasha Allah quraanka diinta si fiican ugu barteen. waxaa jooga gabdha Masar joogo oo ilmahooda dhaqsi quraanka ugu barteen oo maasha Allah oo ka faa'iideen. saasay tacagsigeedan way jiraan hooyooyin negative oo waxba barin. so hooyooyin qaar waxaa jira ayada ku faa'iiday wadanka joogto
maasha allah laga yaabaa 10 sano inay joogto, laga yaabaa inay ka badan joogto, laga yaabaa inay ka yar joogto, laakiin markaas oo wacdo weydiisid negative wax ahayn kuma dhiibayso. So dadka qaar jiro la bedeli karo maskaxdooda, dad jiro la kici karo. So ha noqonin hooyo la kiciyo oo qof markuu guura aragti la guurto, markuu degan yahay la dego, markuu oo baxaya la baxo. Go'aan yeelo adiga ku qaas ah, oo haduu kaas ku fiican yahay iyo haduu ku xun yahay mar walba ilaahay u tala saarato. Fashaawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah. mar walbana ina ilaahay go'aan inta yeelano oo ilaahay tala saarano. So qofka markuu ilaahay tala saarto ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إلهي وكفلين يعني قفك دو إلهي تلسارته. إلهي سبحانه وتعالى دعاءنا أبرنه. إلهي إبري ودحي وإذا أجيبه سومر وبابا أن دعاء أن بتصنه. الدعاء وعبادة دعاء أن بتصنه قبل أن دعاء سنه. هدي الماكوغو مدح ذكيهين، هدي نقاله كوغو يريهاي، هدي والولي مرقو كوهيسو، هدا أنت وحبرنيس وحبرشاد كوغو أذكتاي. سؤال دعاء سنه. إلهي سبحانه وتعالى أنت سقط الضنب أسوك عنه أو صلاتك إنه إلهي سبحانه وتعالى برينه. إلهي سبحانه وتعالى أرميه إنه لن ونفض ذينا يا مركز أصحابي وأوجيدين باقي ما شاء الله تبارك الله هذين وقارني سائدين شيئا فيديو قاعدان قدال كسارو يا فيديو مرة رأي محالة لها waxaan jeclaystay fiidiyogaas maadaama markaas idinkugu talagalay cilado dhaca dartiis ee suurta galbaysa in hadda idin soo gudbiyo insha Allah fiidiyo badan oo idinkugu talagalay jiro waa idin soo gudbinaya insha Allah taala haduu ilaahi yiraahdo biidhnillah taala ilaah awlaadaha noo xifdiyo reey Masar hadaan nahay iskoolaadka waa la xiri rabaa hooyo walba inay balance degsato ilmaha 4 bilood oo iskoolka xireen wadankan 4 bilood oo iskoolka xirnaanaya ama niil 4 bilood waaye marka June iskoolaadka la soo xiraa September aan lagu noqonaa to ilaahay raaso marka ilaa intaas waa inaan balaan ilmaha u degsano quraanka si fiican u sii barno kitaabada si fiican u sii barno uga faa'iideeno insha Allah taala haduu ilaahay yiraahdo hooyo walbo ku sii talagal hada iskoolka markii la xiro cunugaaga geemim inta u fasaxdid waqtigiisa uga lumin waqtigiisa waqti wax barasho iyo activity waqtiga uu sameeyo su'aalaha la soo weydiiyay waxa kamid ah Masar activity ma leedahay yes activity aad iyo aad u badan ay leedahay banooni ay leedahay karataay ay leedahay swimming ay leedahay ma sha Allah meelo badan oo ilma activity ku sii kartid ay leedahay marka Masar way balaaran tahay special Qaahira waa meel aad iyo aad u balaaran wax walbana laga helo lacagtaadii ku xirantaa bas marka insha Allah taala aan balance sameeysan insha Allah to ilaahay yiraahdo ilmaha imtixaanaadka hadda laba bariya uga dhiman maanta waa talaado way jiraan ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah soo fududeeyo bariya arbacaa oo ku egyahay qamiistii jimcaha sanadana sabdiga aakhirkay soo galayaan insha Allah taala waa ilmaha year 6 ka yar wixii year 6 ka maxaa la dhahaa year 6 ka maxaa la dhahaa iyo wixii kale toodna ثانويga waxa ma leeyahay ilmaha iskuulka ugu dambeeyana gadaali ayagana ka galaya 20 bisha May galayaan insha Allah haduu ilaahay yiraahdo biidhnillah laakiin hadda waxa galayo waa year 4 year 5 year 7 year 8 year 9 intaas oo maleenaya marka insha Allah taala ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah noogu soo fududeeyo hooyo walba oo Masar joogto oo ilmo imtixaan u galayaan إن شاء الله تعالى إلهي وحاول يدينا يا فرحت وأنا بقولها إن شاء الله ينتيجون في عنو قروح بدن وإلمهن كفرحان بإذن الله تعالى إن شاء الله هو يولبو ومصر وهمينيس إنا إماتنا إلهي أيضا نبض الله كانوا وأجدي ما شاء الله ماشي بيها iyo maxaa dhahaa nimcada ka jirta insha Allah family baa hore waa soo galiyay haddana insha Allah taala magaciisigiisa waa soo dhigayaa haduu ilaahay yiraahdo biidhnillah linkigiisa oo yaani adresskiisa hoos ay kaga soo dhigaa hada wadanka ku cusubta oo u baahan tahay insha Allah taala please waxaan ka codsanaynaa